بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. إن شاء الله هراء نسيس عندنا طبعا عشر كيكوري وحنا كوتشوتشنا إنه basic interface كبرنامج كان إنه واحد بدن كفهنه سوكرته وحينه فهنا وامح قابك جريلز كأنه هرتين وامح إنه مقضى إنه السماء سان الله إنه أما أودفان قال سان الله إنه سوكرته وحينه شرحني قيبت قدام بيسي وحلو يقانو material كأما وامحي أنا أذيك سنتونه سواء قرأت معه إن أنا وامح دفان قرينه طبعا عشر كهراء إنه وامح صوبلونا يعني كنا وامح كل مسترينا إنه maanta waxaanu isla arki doonaa sida loo define gareeyo wax loo yaqaan section properties. Okay, sida loo define gareeyo baan wax loo yaqaan section properties. طبعا مشروع markaas aan kale aad haysato aad doonayso waa maxay inaad mashruuc dhisma caadiya طبعا sections kala duwan ayuu waa maxay ka kooban yahay ama elements kala duwan waxa haysta wax loo yaqaan columnski waxa haysta beamski waxa haysta waa maxay slabski مثلا hadii waa maxay high rise building uu yahay kale waxa haysta wax loo yaqaan shear wall وهذا ستة كوركي لما أنا محي sections كاسور إنا ديفان قريو أي لو باهي طبعا صح طبعا برنامج تول بس سوى حبة فهمي مي أنا جوا إنا نوامح وضد أن توصية عن هذا بوامح وحن أبهنا يعني برنامج كبراء سواء محي سجن شقي سوق أوكي مركب هذين لما define section properties أي نصفرنا إنه طبعا سد هذا قيبود إنه menu كان مهم زمان كاستعمال إنه حلو يقان frame section وحلو يقان slab sections وحلو يقان وامحي wall sections أوكي marka hadeen fiirina مثلا slab sections waxaynu halkan waa maxay aynu ku define gareynayna dhamaan slabska aynu haysana noocyadooda kala duwan ha noqdaan solid slab ha noqdaan flat slab ha noqdaan waa maxay holy block ha noqdaan ay flat slab adoo maxnaydaad ku soo dhacdo waa maxay waxaad ka waa maxay ku define gareynaysa halkan qaybtan ay ka define gareynaysa. Okay, soo kale hadii مثلا aad haysato wall section hadaad haysato waa maxay halkan ayadoo maxay iyadana ka define gareynaysa wall sections ka maxaa kamid ah shear wallkii corekii soo galatay ma qaybtan ayaa maxay definition ka siinaysa halkan wax loo yaqaan waxa haysataa wax loo yaqaan frame section. Okay, barnaamijka itabsi markaad haysato طبعا frame asagu wuxuu yaqaan wax loo yaqaan beams iyo columns. Okay, frame wuxuu yaqaanaa wadana beams iyo columns ama si kale tadeen u dhigno wax kasta oo waa maxay labo waa maxay dimension soo galatay ma isku dhow dimension kasta xadna uu ka dheeriyaa kan kale yani مثلا maxaan ka wadaan qaab noocan oo kale taasuri delete tan isaga dhaho yani isagu wuxuu u fahmayaa waa maxay frame marka aad ku leedahay barnaamijka shay saan oo kale yani waxaad haysataa مثلا beam saan oo kale okay beam ka waa maxay waxaad haysataa laba dimension yar iyo dimension yar laakiin markii aad waa maxay aad qaab noocan oo kale u sawirto waxaad dareemaysaa beam ka waa maxay waxaad haysataa aad laba dimension waa maxay isku dhow dherarkooda intuu yahay yani hadda waxaad arkaysaa dimension kan dhankan aad ku haysato iyo dimension kan waa maxay aad bay isugu dhow yihiin waa maxay ama dhis wax yar waa maxay santi ay kala weeyeen. Okay, markii loo barbar dhigo waa maxay dimension ka dhanka kale to dherarka aad u haysato. Okay, shay kasto shakli noocan oo kale ta qaadanaya hal dimension oo dheer soo waxa garatay iyo laba dimension oo waa maxay isku dhow soo waxa garatay ma barnaamijka wuxuu u yaqaan wax loo yaqaan frame. Okay, wuxuu u yaqaan frame marka shakli noocan oo kale ta aniga mashruuciga noocee muxuu noqon karaa waa maxay columnski waa maxay shakli noocan oo kale qaadanaya laakiin waa maxay iyagoo vertical sax iyagoo vertical. Okay, sidoo kale wuxuu noqon karaa waa maxay loo yaqaan beamski caadiga soo waxa garatay ma beamska marka wuxuu noqonayaa horizontal iyaga ma fahantaad marka shay noocan oo kale ta marka haysato design noocan oo kale ta waa maxay barnaamijku wuxuu yaqaanaa waa maxay maxaan dhahnaa inuu frame inuu yaqaanaa marka horta markaan rabo inaan frame ka مثلا ama column ha noqdo ama ha noqdo wax loo yaqaano ama ha noqdo waa maxay wax loo yaqaano beam soo waxa garatay ma waxaan waa maxay aan kas waa maxaan ka define gareynaya meesha loo yaqaano frame section. Okay, sorry frame section ka define ka kana marka loo yimaado frame section kana waa maxaan ka define gareynaya. Okay, marka hadda waxaan doonayaa marka ugu horeysa مثلا inaan waa maxay define gareysano columns ka inuu haysano mashruucina waxaan imaanayaa define waxaan imaanayaa section properties kadib waxaan imaanayaa frame sections. Okay, frame sections marka saa soo furaan waxaad arkaysaa waa maxay dialogue noocan oo kale inuu ku soo furmayo waxaad arkaysaa halkan in column badan oo waa maxay barnaamijka modelkiisa ku diyaarsanaa waa maxay halkan waa maxay uu ku soo dhigay aniga ahaan dhammaan waa maxay modelskan midna ka isticmaalay ma jirto. Okay, aniga ayaa waa maxay define gareysanay section cusub anigu aan u baahanahay. Okay, qaybtan hadaad fiiriso waa maxay waxa uu ku siinayaa waa maxay option kala duwan wuxuu ku leeyahay waa maxay import new property yani column hore oo banaanka ugu save gareysan qaab family ama aad haysataa aad ku soo import gareynaysaa mise adiga ayaa waa maxay mid cusub waa maxay raba inaad aad waa maxay aad define gareyso mise waa maxay mid hore oo meeshan ku yaal ayaad copy ka qaadanaysaa aad kaliya magaca aad ka bedelaysaa soo waxa garatay ma add copy of properties wax garatay ma kadibna waa maxay aad mid cusub ka dhigan
bixinaysaa mise mid hore halkan ku yaalay soo xagaratay ayaad modify ku sameynaysaa aad wax ka bedelaysaa okay ama mid hore miyaad dhaliyaysaa mise kuwa badan oo waa maxay saan kale u yaala hal mar multiple ahaan u dhaliyaysaa okay marka dabcan options tira badan way marka waxaan doonayaa midna waxaan dhahayaa waa add new property okay aniga ayaan rabaa midka ugu horeeya inaan anigu aan define garaysto waxa ku soo furaya dialogue aan oo kale okay marka ugu horeysa wuxuu ku leeyahay section shape kaaga waa maxay concrete dabcan sa طيب concrete ka waa maxay halka xadasta qaybtan waa maxay concrete ka waa maxay khaas u tahay qaybtan steel bay khaas u tahay qaybtan steel waa maxay composite ka waa maxay khaas u tahay marka qaybtan waa maxay waxaan ku shaqaysanaya waa maxay concrete ka aan waa maxay column kaygan shakli nooca ayuu qaadanaya dabcan rectangle ayuu qaadanaya rectangle ka click siinayaan okay waxyar waxaan rabaa marka inaad qaybtan aad waa maxay aad focus ka badan saarto marka ugu horeysa wuxuu ku leeyahay waxa sheegtaa waa maxay property name ka aad waa maxay aad rabto inaad samayso aad maxaad magac u bixinaysaa dabcan kan waa magac bas okay waxaan dhahayaa مثلا waxaan rabaa in aan define garaysto wax loo yaqaan column dhanna waa maxay wuxuu yahay 30 cm dhanna waxa uu yahay مثلا 60 cm okay magac noocaas kana la baxayaan okay soddon dhanka kale tan wuxuu yahay 60 cm okay marka wuxuu ku leeyahay halkan waa maxay materialka column-kan uu ka samaysan yahay waa maxay automatically marka soo xasuusto dabcan waxa dareemaysaa waa maxay materialski aan horay aan u soo waa maxay define garaysta ay halkaas ay ugu yeelaan marka material waa maxay aan u soo define garaysta aan concrete strength kan isticmaalay waa maxay 250 ay waa maxay u jiraysa marka isagii ayaan dooranayaa okay midna waxa laga yaabaa inaad ilowdo مثلا inaad marka ugu horeysa mashruuc barnaamijka marka furto inaad material samayso aad okay dib malahan hadda ayaad samayn kartaa aad waa maxay مثلا hadaan u baahanahay مثلا columnska dabcan saan ognahay waa maxay columnska waa maxay wax uu ku taagan yahay mashruuciga ma wuxuu ku taagan yahay dhismahayga sax marka markasta waa maxay concrete strength kan isticmaalayo waxa loo yaqaano columnskayga waxa wanaagsan inay ka awood badan yihiin waa maxay concrete kan isticmaalay slabska iyo waxyaalaha kale la halmaalo okay marka مثلا waxaan rabaa inaan material kale oo waa maxay 300 aan waa maxay مثلا aan strength keedu yahay inaan waa maxay anigu aan define garaysto okay marka meeshii aan ka aadi lahaa define ama kadibna material aan tagi lahaa waa maxay steps ki video hore aan ku soo sharaxnay waxaan iman karaa waa maxay intaan iska daayo halkaan oo kale ayaan ka dooran karaa مثلا click ayaan saa u siinay waxaad arkaysaa waa maxay define material inuu markii automatically saa ku leeyahay okay marka ana rabaa marka aan dhahayaa waa maxay aniga ayaan rabaa in aan hadda define garaysto laakiin mid hore waxa jira waa maxay 250 مثلا aha marka kan ayaan copy ka qaadanayaa soo waxa garatay ma copy ayaan ka qaadanayaa بس magaca bas ii bedel waxaan dhahayaa magaca waxaad iga dhigtaa c 300 iga dhig مثلا soo waxa garatay dhamaan intaan oo kale waa maxay wax iska bedelay imaanaya wax iska bedelay ma jiraan soo waxa garatay laakiin waa maxay fcu ga bas ay isbedelaya sax fcu ga xaqii iska bedelaya marka hadii مثلا qaabkan u soo furo halkan 200 waa maxay 2500 noqon mise wax noqonaysa waa maxay 3000 bay noqonaysa laano strength-kii automatically saasan u bedelay sax okay markaas uu dhaho dabcan waxaad arkaysaa waa maxay wax kale oo aan ka bedelay halkan ma jirto okay markaan dhaho kadibna waa maxay okay ayaan sii leeyahay okay kadibna waa maxay halkan ayaan imaanay okay ayaan sii leeyahay automatically marka dirtaan waxaan define garaystay waa maxay material cusub laakiin wali ma aanan dooran column-kan material ku yahay marka kan ayaan soo furay waxaan dhahayaa waa maxay midkii anigu aan define garaystay dirtaan waa maxay 300 aha waa maxay saas igu doro okay marka automatically waa maxay dareemaysaa waa maxay in concrete-ka dirtaan strength-kiisa inaan ziyaadiyaan okay dhanka kale wuxuu ku leeyahay waxa loo yaqaan national size data okay national size data waa maxay kaano yani kaano scale aad isticmaalayso oo kale haddaan soo furno marka muxuu ku leeyahay مثلا haddaan isla fiirino wuxuu ku leeyahay waxaad ii sheegtaa factor scale kaaga ii sheeg yani hadda مثلا haddaan factor scale kaaga aan number 2 ka dhigo aan number 2 haddaan saa uga dhigo aan okay waxaad dareemaysaa waxa weeye wuxuu barnaamijku u fahmayaa waa maxay kaano in aad column aad isticmaasho dhanna waa maxay 60 ka dhanna 120 ka ah okay يعني factor scale number 2 wuxuu ku dhufanaya dimension ki waa maxay column kaaga marka dabcan shaqo noocaas oo kale ta adeegsan meeyo factor waa maxay waxba ma maxay qaybtaan waa maxay waxba ka bedeli mayaan okay sideeda ayaan u deynayaan halkan wuxuu ku leeyahay waa maxay colorka ay sheeg columns ka qaadanayaan ay color markaas aad indhahaaga waa maxay ay arki karaan ay soo xagaratay ma ayaad waa maxay dooran kartaa okay mesela numberka colorkaas guduudan oo kale ta aad u deystaan halkan wuxuu ku leeyahay marka notice soo waxaan garatay ma notice hadii aad haysato halkan notice-ka ay u sii marka adiga waa maxay calaaqadka idinka dhaxeeya column-kaani waa maxay hadaad rabtid inaad comment aad ka dhigato aad ama comment aad halkan ku reebato aad mesela halkaas ayaad waa maxay aad notice-ka ku qoranaysaa halkan wuxuu ku leeyahay marka section-ka aad haysato waa maxay dabcan waa concrete rectangle soo waxaan garatay ma automatically marka hore aan soo doortay marka halkan automatically saas uu igu fadhiyaa halkan waxaad arkaysaa waxa weeye waxa loo yaqaan depth-ga iyo wuxuu ku leeyahay marka waxaad ii sheegtaa column-kaaga laano marka hore waxaan u sheegay waa maxay magacii bas baan sheegay sax laakiin markaan 30 iyo 60 aan qorto waa maxay dabcan kama wadin waxa weeye dimension-ka waa maxay column-ka hadda waxa weeye halkaan aan rabaa in dimension-ka ku siiyaan waxaad arkaysaa dimension-ka halkan wuxuu kugu cabirayaa meter okay waana niyada ku haysaa marka mesela waxaan dhahayaa marka dhanna wuxuu u yahay soo waxaan garatay 0.3 dhanna wuxuu yahay waa maxay 0.6 okay marka dabcan waxaad arkaysaa waa maxay hadda dhankan hada shakliga eegto waxaad arkaysaa depth-ga inuu ku yiri waa maxay 0.3 depth-ga waa maxay waa dhererkan vertical-ka okay
dharka width-gana waa maxay inuu yahay dhankan horizontal hadii aan kala bedelo anna waa maxay 0.6 kan kale tan anna waa maxay 0.3 shakliga indhaha ku hay automatically isbedelaya okay shakliga automatically isu bedelaya okay marka hadeertaan inaan waa maxay aan vertical miyo noqonaya mise horizontal boqona dhib igu ma hayso ay waa maxay section ba column ka siinayaan hodhow marka mashruucan sawiraya waa maxay bedbedelayaan okay marka dhibaato halkan waa maxay dhibaato ma jirto halka kama jirto mid ka saarabaan waa maxay aan u dhifaan gareynayaan waxaan doonayaa marka halkan waxa loo yaqaan dhankan kale inaad fiiriso waxa loo yaqaan property modifiers ka property modifier ka aad bay muhiim u yihiin waxaad arkaysaa waxa halkan loo yaqaan inuu ku dhigayo stiffness soo xagaratay ma factor stiffness factor ama waxa loo yaqaan stiffness modifiers marka stiffness modifiers ka maxaan u adeegsanayaan halkan waxaan doonayaa waa maxay inaan wax yar aan sharaxo stiffness modifier kan laano aad bay muhiim u tahay badana engineeraduna waa maxay aan arko waa maxay iska inta tiraanay okay marka kalarka madowga kale tadan soo doorto okay طبعا tusaalahan hadii aan haysto column saan oo kale taa wax yar halkan iyo duqaad hadii aan mesela haysto column saan oo kale taa soo xagaratay ma column kan mesela waxaan dhahayaa dhanna waxa uu yahay saan oo kale dhanna waxa uu yahay 30 cm 0.3 dhanna waxa uu yahay aan dhahayaa aan 0.6 مثلا اوكي طبعا halka marka aan column noocan kale taan haysto waxaan adeegsanayaa waa maxay dhamaan inertia-da waa maxay column-kayga ayaan adeegsanayaa soo xagaratay ma barnaamijku wuxuu fahmayaa waa maxay inuu jiro column loo yaqaan soo xagaratay ma dhanna waa maxay uu ah waa maxay 0.3 dhanna uu ah 0.6 marka markuu hodhoti xisaabinayo wax loo yaqaan inertia-da markuu xisaabinayo wuxuu leeyahay marka inertia-da caadiga ah dabcan inertia-da waxa lagu heli jiray waa maxay b h takciib ala kam 12 loo qaybiyo sax soo xagaratay marka wuxuu fahmayaa 0.3 lagu dhuftay waa maxay height-ka aad haysato waa maxay 0.6 soo xagaratay ma kalkaas cubic ah loo qaybiyo 12 markaas waa maxay waxa uu ku soo saaraya waa maxay inertia waa maxay uu leeyahay wax loo yaqaan column-kaaga okay laakiin waxaan rabaa halka wax yar ii joojiyo okay ma xuma inertia saxda ay soo saar laakiin hodhowti marka aan mesela aan column saan oo kale aan design-kayga aan ku sameeyaan oo hodhowti aan imaado site-kii aan imaado okay column-kan kula tahay soo xagaratay ma dhanna 30 ka uu ah soo xagaratay ma 30 cm ka uu ah dhanna uu ah waa maxay 60 cm inuu بالضبط noocaas kale loo fulin karo ma mashaakil badan ba imaanaysa mashaakil waxa ka imaan karta mesela concrete ka soo xagaratay ma strength-kiisi soo xagaratay ma strength concrete waxa laga yaabaa in dhibaato ka timaado waxa laga yaabaa mesela anigu waxaan markii aan divine gareysanay concrete-kiga maxaan iri dhankan hadaa fiirisaad maxaan ku divine gareeyaan concrete waa maxay 300 oo waa maxay strength-keedu yahay soo xagaratay ma marka laga yaabaa concrete kaas oo kaleeto markii waa maxay concrete mix kala sameeyay waa maxay in strength noocaas la soo saari karo way soo xagaratay ma marka maxay imaanay waa maxay column-kii waa maxay concrete-ka loo isticmaalay in waa maxay lagu shubo concrete ضعيف ay noqotay okay marka inertia-da dabcan waxba iska bedelay sidoo kale mesela hadii mashaakil kale imaan karo wax loo yaqaan waa maxay creep soo xagaratay creep aan waa maxay shrinkage wax loo yaqaan waa imaan kara soo xagaratay in tacshiish yimaado soo xagaratay column-kayga waa maxay tacshiish ku dhaco okay biyihiiba iga batay column-kii markii aan shubayo soo xagaratay wax loo yaqaan soo xagaratay biyihii baa waa maxay aan waa maxay waqti waa maxay ratio loo baahnaa aan waa maxay ka ziyaado oo kale marka waxa imaanaya waa maxay cracks baa imaanaya waxa imaanaya tacshiish baa imaanaya mashaakil badan baa waa maxay soo wajihi kara waxa laga yaabaa hodhoti xataa foreman-ki marka waa maxay column noocan oo kale ii xiri waxa laga yaabaa inuu waa maxay mesela waa maxay 0.6 uusan noqon dimension-kii inuu wax iska bedelaa mesela halka aan idhaho waa maxay 0.5 soo xagaratay markan 0.25 yani waa maxay dimension-iska waxa laga hodhoti mashaakil in iga yimaado marka boqolkiiba ma hubo waa maxay garantiina ima siin waa maxay garantiina ma haysto in column-kan design-kan ku sameeyay boqolkiiba barnaamijka markaan isticmaalayo oo waa maxay string ilaa noo dhati barnaamijka waxaan isticmaalaya waxaan la soo baxaya waa maxay string actions-ka la soo baxay moment-ka la soo baxay ala asaas moment-ka hodhati la soo baxayo ama waa maxay awoodaha iyo forces-ka aan la soo baxay waa maxay birta aan u dhigayaa sax marka garanti maadaama aanan haysan inaan column-kii ama waa maxay sida aan u rabayno hodhati mustaqbalka markii la fulinayo waa maxay mashaakil badan ay ka imaan karaan ay soo xagaratay ma la waxaan dhahayaa marka wax loo yaqaan waxaan isticmaalaya wax loo yaqaan set modifiers okay set modifiers ka marka maxay yihiin waxay yihiin waa maxay mesela haddaan delete san isaga soo dhaho set modifiers-ka halkan marka aan haysto waa maxay waxaan yareynayaa aan wax loo yaqaano inertia-dii aan yani markii aan column-kayga saan oo kaleeto u yahaa waxaan adeegsanaya wax loo yaqaano I gross baan adeegsanaya ama wax loo yaqaano waa maxay inertia cross yani inertia-dii dhamaystirnayd oo waa maxay column-kan adeegsanaya la hadda laakiin waxaan rabaa markii aan waa maxay aan barnaamijka aan waa maxay dhoti aan design-ka sameynay waxaan adeegsanaya wax loo yaqaano I crack okay I crack marka waa maxay waa number lagu dhuftay I gross-kaaga aad haysatay
ay grosska aan haystay soo waxa garatay ma number ku dhufanaya numberkan ratio way soo waxa garatay ma ratiodan marka koodadka kala duwan marka midna hadii aad koodka aad isticmaalayso UBC soo waxa garatay ma ACI oo kale aad isticmaalayso hadii BS isticmaalayso dhamaan waa maxay aad bay uga hadleen waxa loo yaqaan set modifiers waana idinku waa maxay idinku la talinaya waa maxay inaad boontigaas ay indhaha si fiican ugu qabataan okay marka midna ACI oo kale muxuu ku leeyahay marka column-ka aad adeegsanayso soo waxa garatay ma columns-ka oo kale wuxuu ku leeyahay marka 0.7 soo waxa garatay ma I gross adeegso يعني maxaan ka wadaan ay gross ka baan yareynayaan soo waxa garatay 0.7 baan ku dhufanaya number yar baan ku dhufanaya soo waxa garatay ma maxaan yareynaya 30% baan dib u yareynayaan soo waxa garatay marka barnaamijka marka ku design gareynaya waa maxay waxaan dhahayaa may column-kayga wuxuu ka shaqeynayaa 0.7 bas buu waa maxay ka shaqeynaya energy-diisa total ka ahayd baan leeyahay soo waxa garatay ma yani maxaan ka dhigay waa maxay more safe soo waxa garatay more safe yani waxaan qaatay waa maxay waxa loo yaqaano safe waxa loo yaqaano safety factor caadi ahaan bay igu shaqeynaysaa qaab safety factor ah baan waxaan u adeegsanaya soo garatay ma midna column-kii maxaan dhahay marka 0.7 I gross marka adeegsanaya midna wuxuu ku leeyahay midna hadii aad marka beams oo kale aad waa maxay aad adeegsanayso aad okay اوكي سوري marka beamska kale wuxuu ku leeyahay marka beamska kale wuxuu ku leeyahay waxaad adeegsataa aad wax loo yaqaan nus ama waa maxay 0.5 yani beamska kale maxaad adeegsanaysaa waxaad adeegsanaysaa yani ay effective ka aad ama ay crack aad isticmaalayso muxuu noqonayaa nus ama waa maxay 0.5 ay soo wax garatay ay gross kaaga yani maxaan ka wadaa yani beam مثلا soo wax garatay ma dimensionkiisa dhanna waa maxay ka aha مثلا soo wax garatay ma 25 dhanna مثلا ka aha soo wax garatay ma 60 waxaad barnaamijka u fahansiinaysaa ama barnaamijka u shaqeynaya waa maxay inuu beamkan مثلا waa maxay u shaqeynaya waxa dhanna inuu ka yahay مثلا soo wax garatay inuu yareeyo barnaamij waa maxay dimensionkii dhanna wuxuu ka dhigayaa 12 dhanna wuxuu ka dhigayaa waa maxay 30 soo wax garatay ma nus buu ku dhufanaya 0.5 ku dhufanaya okay dhanna wuxuu ka dhigayaa 30 saas oo kale ta okay marka set modifiers ku qaabka noocaas oo kale ta laana hodoti ma hubo garantiina ma haysto aan design kasta iyo dimension kasta aan waa maxay ku design gareeyo hodoti bizabt saas oo kale ta in waa maxay site-ka loo fulinayo صح marka ay gross ka saan oo kale waa maxay loo xisaabiyo ama waa maxay ay crack okay marka waxaan rabaa aan si waa maxay dadku dhanay u faa'iidaan ay hodoti waa maxay qofkii halka مثلا doonay inuu information badan ka qaatana waa maxay waa maxay u sii raadiyo مثلا كود كان مثلا ICI soo xagaratay ma muxuu ku leeyahay oo soo xagaratay ma مثلا saan oo kale beamski slabski مثلا wallki columnki okay wuxuu leeyahay مثلا beamska mid kasta waa maxay waxaan isticmaalayna waa maxay set modifierka ama waa maxay numberka ratio-dan isticmaalayna waa beamska oo kale waxaad adeegsanaysaa waa maxay كأنه waa maxay inay nus waa maxay yani energy dhan baad waa maxay laba u qaybinaysaa okay slabs ko kale waa 0.85 okay walls ko kale waa 0. slabs ko kale 0.25 sorry 0.25 walls ko kale waa 0.35 okay columns ko 0.7 okay soo xagaratay ma yani crack waxaan leeyahay column ko kale wuxuu u shaqeynaya kaana waa maxay 0.7 soo xagaratay ma 30% baan yareynayaan wallka oo kale yani xaga yani waxyaala aad waa maxay looga murugado maxay wallki dhamaa ama shear wallki dhamaa waa maxay kaana waxaan ka soo qaaday ani sectionka aan siinaya waa maxay مثلا ay section C soo xagaratay ma wallka waxaan arkaynaa waa maxay shear wallska kamiya waxa galayso dhigto waa maxay biro intii la xisaabo la cadad soo xagaratay ma biro aad u tiro badan baa galaya haddana waa maxay markaan barnaamijka aan fahansiinayo ama waxaan design gareynayo waxaan ka soo qaaday waa maxay kaana inuu wallka shaqeynayo waa maxay 35% awoodiisa oo dhan okay slabs ko dhan soo waxa garatay ma area-daas oo dhan aad arkayso waxa garatay anahay waa ma 25% bas baa ay shaqeynaysaa soo waxa garatay ma beams ko kale nus kaliya ay shaqeynayaan okay soo waxa garatay ma marka mowduuca waxa la yiraahdaa set modifiers okay set modifiers baa la yiraahdaa qofkii marka insha Allah doonaya waa maxay inuu si fiican waa maxay u sii baaro dabcan soo waxa garatay ma koodadka kala duwan soo waxa garatay ma UPC BS koodka ICS waxa ACI ga dhammaan American koodka soo waxa garatay ma dhammaan aad bay uga hadlaan ay si faahfaahsan soo waxa garatay ma insha Allah waxaan isku dayaa video gudihiisa inaan ayni link meelahan shaashada in kaga soo baxaysa haddaad u baahatay reference-ga inaad waa maxay si raacataan inaad dib aad uga raacan kartaan okay marka inta markaan ka soo tagaan barnaamijkayga markaan ku soo noqdaan okay inta ay sharaxay radaan ka soo tagaan marka set modifier saan oo kale okay marka aan maxaan column-ka aan sameeyay waa maxay serab waa maxay column-kii baan hadda diiwaan gareynaysa marka waxaan column-kayga waxa ii shaqeynaya waa maxay 0.7 okay moment-giisa aan yareynayaan soo xagaratay maxaa la 0.7 soo xagaratay marka aan waa maxay 0.7% bas oo waa maxay column-kayga bas baa ii shaqeynaya okay marka saasan okay u dhahayaan marka hal su'aalo muhiim ah waxa dhigi kartaa مثلا engineer goorma
set modifier adeegsada kullama markasta set modifier adeegsatay aad markasta mashruucaagu more safe yahay soo xagaratay markasta aad waa maxay mashruucaagu more safe yahay marka hadii مثلا باللاير aad sameynaysa laba door saddex door oo kale ta set modifier waxa dhihi kartaa may caadi yani mid kasta waa maxay ay grosskeeda caadiga waa maxay isticmaal laakiin مثلا hadii aad u dhigto high building aad isticmaalaysa high rise building tower oo kale ta design gareynaysa 12 door 13 door soo xagaratay set modifier waa muhiim jiddan 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 waa maxay in aad xoog ka saarto laana load aad buu u ziyaadiyaan soo xagaratay ma riskigu aad buu u ziyaadiyaa fa markasta oo waa maxay mashruucaagu scale weyn u qaato ama number weyn u qaato soo xag scale ku aad weyn yahay markasta waxa wanaagsan waa maxay inaad safety factors kaaga waa maxay aad ziyaadiso soo xagaratay ma laana khalad kasta oo dhutay mashruucaas khalado badan ba imaan kara soo xagaratay ma khalad waa maxay dhanka ka imaan kara waa maxay shaqaalaha khalad ka imaan kara waa maxay engineerka waa maxay site engineerku focus badan u soo saarin qaabka waa maxay birta loo istilaamay oo kale qaabka shaqada loo hubiyo qaabka loo jeegaray fa mashaakil badan ba imaan kara soo xagaratay markasta designer aad tahay ama markasta aad structure aad rabto inaad design gareyso niyada inaad ku haysaa waa maxay markasta in safety factor kaaga waa maxay walaana waxa kaliya ku badbaadinaya soo xagaratay marka safety factor kaaga markasta ku dadaal marka inta markaan saa uga soo tagaan okay aan saa u leeyahay hadda waxaan define gareysta waa maxay column-kayga ugu horeeya okay marka okay aan saa u leeyahay horta marka mesela waxaan rabaa column kale inaan define gareysto aan soo xagaratay marka kana oo kale tayaan imaanaya waxaan leeyahay waa maxay كوبي بس ayaan leeyahay soo xagaratay magacyada bas ma bedelaya inta kale tan waa ii sameeyay soo magacyada section kan bas ma bedelaya okay magaca kale tan ayay mesela column soo xagaratay marka kan oo kale tan mesela dhanna wuxuu yahay 35 dhanna wuxuu yahay aan dhahay mesela 70 cm saas oo kale am 8 cm ay xaga ay dimension aad jeceshaa soo xagaratay dhankan wuxuu noqonayaa 0.85 mesela soo xagaratay dhanka kale tan wuxuu noqonayaa 0.8 soo xagaratay modifiers waxa arkaysa kii horan koobi ka soo qaatay marka modifiers ki bizabt waa maxay tabtoodiiba igu yeelaan marka okay man saa u leeyahay kana okay man saa u leeyahay halkaas waa maxay column-kii ugu horeeya marka saa u define gareystaan okay man saa u leeyahay markaan okay marka one time aynu hal mar iska dhameynayno hadda waxaan rabaa markaan beamskayga waa maxay inaan define gareysto marka laba beam baan waa maxay aan mesela aan define gareysanayaan okay marka waxaan imaanayaa divine kadibna waxaan imaanayaa section kadibna frame section ma tagalaan waxaan dhahnaa dhanka waxaan ka define gareynayaa columnska iyo frameska okay waxaan dhahayaa marka new waan leeyahay kadibna concrete yani hadda uu boobsiinaya khalaas okay waxaan dhahayaa مثلا beam dhanna wuxuu yahay 15 b baan usoo gaabsanayaa bas waxa garatay ma dhanka kale tan wuxuu yahay مثلا baan dhahayaa 60 cm okay مثلا soo waxa garatay waxaan dhahayaa halkan 0.6 okay halkaana maxaa leeyahay 0.25 saas oo kale okay set modifiers kay marka maxay noqonayaan hadeertaan beams ka maxay ku ballanna waa maxay inaynu ka dhigno مثلا nus inaynu ka dhigno sax marka waxaan dhahaynaa nus kana waxaan dhahaynaa nus ayaan ka dhigaynaa okay marka okay aan saa u leeyahay kana okay aan saa u leeyahay beam kan koobi baan ka qaadanay mid kale aan sameysanayaa mid kale مثلا waxaan dhahayaa beamska gudaha oo kale b dhanna 12 buu yahay مثلا dhanna 70 buu yahay centimeter waan dhahayaa okay marka maxaan leeyahay halkan 0.2 alif kan kale tan waxaan leeyahay 0.7 ayaan saa u leeyahay okay kadibna maxaan leeyahay modifierski طبعا modifierski nuski waa yimi okay okay ayaan saa u leeyahay hadana waa maxaan define gareystay laba beam iyo laba column baan saa waa maxay aan u define gareystaan maxaan dhahayaa marka okay ayaan saa u leeyahay okay okay marka hadda waxaan doonaynaa inaynu sidoo kale aan define gareysano slabska noocyada kala duwan aan haysanay sax marka maxaan dhahaynaa waa maxay define okay define markaan saa u soo furno waxaan imaanaynaa markaan sectionska kadib waxaan imaanaynaa wax loo yaqaan section slab sections okay click marka saa u sii socod dabcan waa maxay laba model oo hore waxa kuugu jira waa maxay barnaamijka waa maxay marka install gareysay saas kuugu diyaarsanaa marka dhib ma lahan mid kamid ah ayaan waa maxay modify leeyahay bedelayaa bas soo xagarata midka ugu horeysa marka مثلا waxaan sameysanayaa solid slab ss ayaan u soo gaabsanayaa solid slab okay hadana waa maxay waxaan dhahayaa 16 thickness-keedu waa maxay waa 16 cm okay marka 16 ayaan maxay saa ula baxayaan marka dabcan materialka ii sheeg buu leeyahay marka materialka dabcan خلاص dialogue-gan waa wada fahanay aynu sax wax badan waa maxay cusub in shama yaalaanay marka muxuu ku leeyahay waa maxay materialka ii sheeg marka waxaan dhahayaa مثلا C1 waxaan ka dhigaa 200 300 u deyso 300 columns-kan u deysanay laana columns-ka waxaan dhahnaa aynu markasta waa inay more ay noqdaan ay strength okay marka waa maxay خلاص modifiers waa maxay wuxuu leeyahay marka nationalka waa maxay factor miyaad ku dhufanaysaa may خلاص marka halkan waxaan doonayaa waa maxay slabska wuxuu ku leeyahay waxa loo yaqaan halkan shell thin miyuu noqonayaa mise shell thick buu noqonayaa mise membrane buu noqonayaa mise layered buu noqonayaa waxaan doonayaa waa maxay shell thin iyo shell thick insha Allah videoska soo socday more clear ay noqonayaan si fiican aad u kala fahmaysaa marka in footing-ka meelahaas aynu gaarno okay marka waxaan doonayaa in video gaar ah iyaga aan uga hadlo aan laana mawduucooda ziyaado waa maxay xogaa waqti badan buu u baahan yahay
okay marka halkan modifierska aan haysto maxaan dhahayaa marka modifierska halkan waxaad haysataa wax loo yaqaan membrane iyo wax loo yaqaan bending okay dabcan markii waa maxay waxa la xiriira waxa weeye marka modifierska markaan saa u nimaano modifierska marka hadaynu saa usoo furno waxaad arkaysaa waa maxay inuu laba qaybood kugu qaybiyay membrane iyo bending okay marka waxaan insha Allah video gaara ayaynu farqiga u dhaxeeya membrane iyo bending aan kaga hadli doonaa okay marka haddeertaan waxaan doonayaa bas inaad halkan ila fahanto aad lixda ugu horeysa saddex membrane iyo waxaad haystaa saddex bending okay marka maadaama kuwana waa directionska aad haysato soo xagaratay marka directionka waa maxay insha Allah video soo socda waa maxay more clear si fiican u kala noqonayaan si fiican aad u fahmaysaa marka waxaan sameeynaa lixda ugu horeysa waxaan ka dhiganaynaa aynu soo xagaratay maaha waxa loo yaqaano qaab noocan oo kale taa waxaan siinayna modifierski 0.25 aan ku ballanaa inuu ahaa sax marka maxaan sameeynaa dhamaantood waa maxay control v ayaan soo wadayaan okay ilaa lixda ugu horeysa okay lixda ugu horeysa okay ilaa lixda ugu horeysa shirarka kuwan qaybtan iska daa okay mass weight iyo waa maxay iyo weight kan iyadana waxaad arki doontaa aydu insha Allah video gudihiis ama videoga next video waa maxay iyadana waa maxay halkan inaga bedelayna aad arki doontaa okay marka lixda ugu horeysa waxaan ka dhiganaa waa maxay waxaan siinaa aynu wax loo yaqaano set modifiers ka insa u siisanaan okay insa u leeyahay okay marka waxaan leeyahay halkan qaybtan hoose dabcan notes hada haysato adiga iyo waa maxay calaaqada waa maxay xiriirka idinka dhaxeeya slabska halkan waa maxay comment ka dhigo hada jeceshahay marka type ka slab aan haystaa marka waa maxay thickness kaaga ii sheeg buu leeyahay marka thickness kayga waa maxay 16 cm ayuu qaab noocaas kale waa sax marka okay aan sawleedo waan meter bi igu cabiraya marka waan dhamaan waa maxay units kayga oo dhan waa maxay dimension kan siinaya meter noqdaan okay aan sawleeyahay okay hadda maxaan define garaystay aan solid slab thickness keedu 16 yahay koob ayaan ka qaadanaya waxaan doonayaa marka hadda flat slab مثلا flat slab fs ayaan soo gaabsanaya okay thickness keedu مثلا uu yahay 20 cm inaan waa maxay aan soo define garaysto aan materialka dabcan tabteeda u deynayaan dhamaan waa maxay kuwan dhanka bedelmi waxaan iska hubinayaa waa maxay modifierska inay okay yihiin lixda ugu horeysa okay 25 bis ay ugu yihiin marka maxaan dhahayaa waa maxay dhankan muxuu noqonayaa 20 cm ayuu soo noqonayaa malaha 0.2 okay aan soo leeyahay marka maxaan define garaystay solid slab iyo flat slab kan oo kale taa jeceshay oo iska dheeleedi kartaa delete ayaa dhihi kartaa aad soo xagaratay ma si ay kugu soo haraanay labadii aad soo define garaysatay marka maxaan leenahay okay marka inta hadaan uga soo gudubnayno hadda waxaan doonaynaa marka inaynu sawirnayno خلاص dhamaan sectionskeeni waa maxay waynu dabcan define garaysanayno dabcan hadda maxaynu imaanaynaa sectionka qaybta waa maxay menuga waxaan imaanaynaa draw saan oo kale soo xagaratay laakiin waxaan ku dhahayaa waa maxay dhamaan waa maxay waxaad ku arkaysaa drawgi waa maxay iyadoo waa maxay halkaan ay qaab saan oo kale kugu yaalan soo xagaratay banaanka barnaamijka ay ku yaalan marka hadda خلاص waxaynu wax ka adeegsanaynaa waa maxay qaybtan ayaan waa maxay aynu ka dooranaynaa mid kasta aynu rabno inaynu sawirno okay marka mashruuciga marka saan oo kale taa waa istaan mesela waxaan doonayaa in hadda columnska aan sawiro oo kale okay columnska mashruuciga waa maxay aan sawirayaan doonayaan ama waa maxay aan modelkayga aan soo xagaratay ama maxay ku muujiyaan marka calaamada columnka waa tan dabcan saan oo kale waxaad arkaysaa waa maxay quick draw column saas oo kale aynu ku siinay okay click marka saa u siisay okay saano kale markaad u timaado waxaad arkaysaa waa maxay mouse-kayga hadaad fiiriso aad column baan haystaa marka hadii aan mesela aan saa zoom aan usoo dhaho soo xagaratay zoom hadaan saano kale usoo dhaho waxaad arkaysaa column-ka aan haysto dirta noocyo way shakligiisu soo xagaratay waxaad arkaysaa I section ama waa maxay qaab style inaan haysto aan waa maxay column style marka dabcan aniga column aan waa maxay define garaystay baa jiro qaab concrete soo xagaratay inaan bedelaan doonaya marka si baan u bedelayaan waxaad imaanaysaa waa maxay qaybtan hoose properties hadaad saa u fiiriso click hadaad saa u siiso aad waa maxay menu-ga saa usoo furto waxaan ka baarayaa waa maxay listigan column-yadii aan waa maxay u define garay waxaad arkaysaa waa maxay inaad halkaan ay ku arkaysid dhamaan frameski aad waa maxay aad afartii frame aad waa maxay aad qaab noocaas u define garaysay labadii beamka iyo labadii columnska la xiriir okay marka mesela column-kan 30 fi waa maxay lagu dhiftay 60 kan oo kale tan u baahan dhanna 30 waa dhanna waa maxay 60 waa okay marka waxaad arkaysaa dhamaan waa maxay mouse-kayga hadii aad fiiriso aad dhaqdhaqaaqaya in column-kayga waa maxay qaab rectangle ay isugu bedelay okay oo waa maxay concrete section okay marka هذا ولي قيبتنا هذين في إيران وحكي مركا moment releases كاجو continuous بنقولنا مثل بينت بنقولنا أوكي مركا طبعا أنا قام حندوني moment release كاجو ما حي continuous نقوله هالكم حضرتك سواء ما حي نقول angle degree كاجو ما حي نقولنا zero من سواء ما حي طبعا angle كاجو هذا قاعد نوعيه horizontal ويا له هدان دوني مثل إن column كاجو vertical كاجو حنا هيان 90 degree iga dhig soo xagaratay ma interadan sa u dhaw waxaad arkaysaa waxa column-kaygu waa maxay qaab vertical ay isugu bedelo okay marka halkan ayaan ka bedelay hadaan u baahdo waqti mustaqbalka inaan column-ka aan doonayo aan direction-kiisa inaan bedelo okay sidoo kale halkan wuxuu ku leeyahay marka plan offset x iyo plan offset y yani waxa ii sheegtaa mesela inta aad waa maxay aad ka dhigayso waa maxay x direction-ka waa maxay offset waa maxay coordinates-ka ku sawirayso iyo y direction-ka coordinate-ka ku sawirayso ii sheeg marka anigu dabcan
موسكي أنا استعمالي طبعا إيماني أكسس كستان وبهنا كنت صورية مركو وما بهني وما حي وحلو يقان أوفست سكان وما بهني أنا أوكي هل كان كلا تضاد في رسوح كلية وما حي كاردينال بوينت كا هيستو وما حي ميدل سنتر يعني هذا مثلا كولوم كي مركز زوم سأوصلهم كولوم كي حجيبا كايستا سنتر كان كايستا صح ميدل سنتر كان كايستا دي مثلا أندونيا مثلا دانس أوصل رفتو عند هو محي ميدل رايت كا هذا كولوم كي سأوفيرس حديه حجيبا كايستا هو ميدل لكن هو محي رايت بان كايستا صح هدي مثلا أن بدله عنده مثلا بوتوم سنتر كا هذا كيسا كولوم كي حجيبا هيستا بوتوم سنتر كي ينسى أو هيستا قيبت السرق ومحي سنتر كا أوكي مركا مثلا أنا ميدل سنتر كي ودي سنة أوكي اوكي marka waxaan doonayaa hadirtaan in aan columnskayga aan sawirtaan okay marka maxaan imaanaya ay waa maxay saan oo kale intersection aan imaanaya kadibna waa maxay columnkayga ayaan soo sawiranayaa click okay click ayaan soo siinayaan waxaad arkaysaa waa maxay marka waxaan doonayaa aan laba qaybood inaad waa maxay aad indhaha ku hayso halkan waxaan doonayaa markaan sawiray inaad isha ku hayso dhankan 3D modelkana waa maxay inaad indhaha ugu hayso okay hadda hal column baa sawiray dabcan laakiin columnkayga waxaad arkaysaa inuu ku sawiray waa maxay qaybta ugu sareysa waa maxay buildingkayga okay laana xageebaan joogaan hadii aad plan view-gaaga aad eegto waxa joogtaa waa maxay 6 baad joogtaa okay marka plan view-ga waa inaan bedelaa aan dhahaa waa maxay mesela waxaan doonayaa aan intaan ka baxo amarkayga inaan baxo iska delete kan okay iska delete hadaan rabo inaan amarka ka baxo qaab nooca uga baxaya calaamadan waa maxay ayaan mouse-ka aan uga baxayaan hadaan select aan soo dhaw waxaan select gareeyaa waa maxay column-kaygi delete hadaan soo dhahana waxaan doonayaa in asaas iga delete marka mesela hadii aan kan kale aan doonayaa in si fiican igu muuqdo oo kale waxaan sameeyaa kan click ayaan soo siinaya kadibna waa maxay extrude ayaan soo leeyahay okay extrude baan saaranay si uu dhigto mustaqbalka waa maxay si fiican igu muuqdo okay marka hadda waxaan imaanayaa blank-kayga soo garatay ma blank xagee baan imaanayaa mesela ground-iga ayaan imaanayaa qaybta ugu hooseysa okay apply ayaan leeyahay okay marka hadda waxaan joogaa ground baan joogaa marka hadii mesela aan column-kayga dib ugu noqdo column-kaygi aan waa maxay section-kaas aan isticmaalaya dhammaan waa maxay intaan okay bay yihiin aan doonayaa inaan sawiro qaybtan hoose fiirin soo garatay ma xagee uu ku sawirayaa automatically column-kayga wuxuu ku sawiraa maxay soo xagaratay ma doorka ugu hooseeya soo xagaratay hadii mesela aan qaybtaan oo kale aan doonayo inaan column kale saa ugu sawiro maxaad arkaysaa waa maxay dhammaan waa maxay 3D modelkaygina indhahan ku hayaa soo xagaratay ma blank markaan sawirayna waa maxay dhanka saan kale ay ugu hayaa marka waxaan doonayaa halkan qaybtaan hoose inaad fiirisid oo kuleeyahay waa maxay column-ka asawiraysid xageeba ku sawiraysaa one history baad ku sawiraysaa yani ground floor-ka bas baad ku sawiraysaa hadaa kan saa soo furo waxaad arkaysaa waa maxay hadii aan dhaho mesela all histories hadii aan dhaho dhammaan histories ku dhan igu sawir mesela column saan oo kale waxaan dhigayaa column-kan oo kale baan waa maxay halkan ku sawirayaa click markaan u siiyo waxaad arkaysaa waa maxay dhammaan histories ku dhan waa maxay inuu waa maxay column-ka saa igu sawiray okay marka dareemaysa waa maxay in shaqadii ii fududaatay hadeertaan waa maxay markii aan markasta aan waa maxay intaan floor kasta imaadina column ka sawiro hadana waa maxay floor kale ku xigay imaado columns ka sawiro la inaan hal floor intaan imaado kadibna aan all history aan waa maxay aan waa maxay columns-kayga aan waa maxay si fudud aan u sawiran karo ayaad arkaysaa soo xagaratay ma qaab noocaas oo kale dabcan tabs hawsha waa ku fududaysa ay soo xagaratay option noocaas oo kale ay ku sameysay laakiin waxaan doonayaa waxa weeye inaad iska ilaaliso markasta amarka inuu active ku ahaado laana hodhoti khalad kasta oo waa maxay mesela ama draw kasta aad hal floor aad u baahantay inaad ka bedesho aad automatically dhammaan waa maxay leveladii dhan buu ka bedelaya markuu dhato waxaad arkaysaa mashruucaaga oo dhan inaad ku wareertay aad okay waxaan ku dhahayaa markasta iska hubi markasta kana kuugu fadhiyo one soo xagaratay ma history illa hadii aad mesela aad hodhoti mustaqbalka aad timaado all history waa inaad indhaha ku haysaa waxaad sawiraysaa okay markaad ka dhameysatidna markiiba ka baxo waa maxay one history kali okay laano khalad yar oo waa maxay ka yimaada dhammaan floors-kaaga dhan buu waa maxay uu maqashiinaya soo xagaratay dhammaan floors-kaaga dhan waa maxay edit-ka ku sameeynaya soo xagaratay ma hodhotina wax mashruuci dhan buu waa maxay khalaas yani waa inta wareerto inaad mashruuci min alif ilaa kasoo bilowdo waa maxay ku qasbanaanaysa okay marka saniyada saa u hay marka columns-kayga mesela hadda aan all history hadaan saa u dhaho okay kana aan rabo labadan iska dhaliido okay sorry labadan waxaan doonayaa inaan iska dhaliido dhammaan histories ku dhan baan rabaa inaan hadda mar sawirto aan laana hadda waxba design gareemin hadda waxaan rabaa inaan modelka bas aynu fahanno soo xagaratay ma design-kii waa maxay iyo DXF-kii waa maxay casharada dambe ayaan ku arki doonaa marka khalaas column-kayga ayaan saa soo dooranayaa aan soo xagaratay ma dhammaan kana all wuxuu igu fadhiyaa columns marka all dhammaan waa maxay saas oo kale ayaan u sawiranayaa columns-kii aan haysto oo kale mashruucayga soo arkaysa sax waxaad arkaysaa waa maxay in مثلا مشروعاغي ومحتاج كلته ومحكولمسكي اساس كله كوغ بدلمين اساس كله كوغ فريسانيان markasta aad maxay u dhisaa aad u sawirato طبعا هذا مثلا هدان دوني ان كولوم كبدله مثلا كولوم كادان هيستو waa maxay dhanna 30 cm buu hadana 60 buu sax kala tama ki kale ta dar habeen ka bedelo maxay automatically kan iimaanay xanaaya kan kale to aan samaysto muxuu hadana 35 buu hadana 80 buu okay kan iiso sameeyaan dhahay okay marka مثلا kan hada labadan qaybtan vertical bisa igu yahay horizontal bisa igu yahay hadana ina vertical ka dhiga maxaan dhahayaa halkan 0 halkan 0 ayaan dhahayaan soo kala tam angle-kii automatically waa maxay isu bedelo vertical bisa isu bedelo okay marka vertical ay column-kayga hada saa u noqdo
dhammaan columnskayga 3D modelkana waad arkaysaa waa maxay isbedelka markasta column aan sawiro dhammaan saas waa maxay isu sawiraya okay marka hadda مثلا waxaan doonayaa in aan beamskayga aan sawirtaan okay columnskayga hadda saan goortaan u dhameystay haddaan ka saa uga baxo ama markayga anoo ku jira soo xagarta waxaan doonayaa beamska inaan sawirtaan beamska marka waxaan rabaa dhammaan waxaan dhahayaa مثلا dhammaan followers oo dhan waa maxay CMB yihiin ka soo qaad mashruuca waa maxay modelka aan sameysanayno assumption baan sameysanaya waxaan dhahayaa marka مثلا beamska aan haysto مثلا beamska waxaan sameysanayaa laba beam baan sameystaa tabcan sax beamska waa maxay thickness waa maxay wertigooda uu badan yahay waxaan ka dhiganayaa waa maxay beamska banaanka maraya mashruuca soo xaska waa maxay qaybta saran ka dhiganay hadaya marka beamka saan oo kale marka beamka xagee baan ka sawirayaa line column waa soo xakartan beam haddaan rabo inaan sawiro waxaan ku sawirayaa waa maxay kan loo yaqaan quick draw beams or columns kan ku sawiri kartaa laakiin ka badana beams kan u adeegsanayna okay click marka saas oo kale aad u siiso waxaad arkaysaa waa maxay dhammaan inuu qaybtaan oo dhan beamska saa kuugu dhigay 12 door laana halka maxaa ii jooga waa maxay active yaha all stories baya طبعا صح marka kan waa maxay waa quick soo xagartay maqaab quick ah soo xagartay marka mesela waxaan dhahayaa saan oo kale dhammaan mashruuciga geesihiisa oo dhan waa maxay waxaan dhahayaa mesela beams ayaa waa maxay ay ugu hareeraysan beams ayaa saan oo kale igu hareeraysan marka waxaad arkaysaa waa maxay beamskaygii ay waa maxay saas oo kale igu dhan yihiin floor kasta kasa ay dhiman qaybtan ay dhiman okay marka waa maxay floor kasta beamski banaanka maraya marginal beams kooda waxaan ka dhigtay thickness kooda waa maxay 25 ma ka dhigtaan okay engineer marka mesela waxaan dhahayaa aan tusaale ahaan ay columns beams waxaan rabaa nooc kale ahaa mesela quick beam ayaan saan u imaanayaan nooc kale waa maxay dimension kooda wuxuu ahaa dhanna wuxuu ahaa waa maxay 12 dhanna wuxuu ahaa taban quick beam marka saa tiraahdo frame marka saa soo furto مسؤولي كان واحد بروبرتي waa لأنه وحلا بيت من لأنه وحلا واحد 7 سنتيمتر مركان عليا مثلا qaybtaan oo kale مثلا iyadana waa maxay beams kan oo kale taagay مثلا soo xagaratay ama waa maxay group kan oo kale intaan oo dhanba waa maxay beams kan oo kale taagay yaala مثلا soo xagaratay waxaad arkaysaa waa maxay markaan saan select aan u dhaho waxaad arkaysaa selection ka triangle ka aan haysto inta waa maxay buuxiyo oo dhan waa maxay inuu dhigaya waa maxay beams oo kale taa okay marka مثلا saan oo kale taan dhaho مثلا qaab noocaas oo kale taa beams waa maxay saas oo kale taagay qaab noocaas oo kale leeyahay مثلا saan oo kale taan beams qaybta saran saa u dhigto qaybtan kale waa maxay hoos oo kale taan beams saa wada dhigto waa maxay dhammaan waa maxay shaqadeedii uu ii fududeynaya sidoo kale tan waa maxay qaab wuxuu igu dhigayaa waxa weeye sahal marka مثلا hadaan amarkii ka baxo qaabka 3D ga hadaan rabo inaan iska hubiyo marka 3D ga calaamadeedan rotation ka imaanay waxaad arkaysaa waa maxay dhammaan beams kayga waa maxay saas kale igu dhigay mashruucaygii soo xagaratay ma qaab noocaas oo kale taa waxa laga yaabaa inaad weydiiso aad tiraahdo engineer khalaas waxaan rabaa مثلا labadan column oo saan oo kale taa inaan horizontal ka dhigaan rabaan okay hadda vertical bayn okay waxaan ku dhahayaa waa maxay select saude okay inaan bedelaan rabaan okay dhammaan selection kii buu ii saaray soo xagaratay ma columns ka dhameystiran laana waa maxay qaybtan hoose all stories bay ahayn sax marka waxaan rabaa inaan bedelo oo kaleeto waa maxay section ka waa maxay dhererkiisa marka beamkii buu sidoo kale tada zoom sa soo tirada dhanka waxaad arkaysaa beamkii waa maxay asagana select ya marka khalad weey haddaan doonayo inaan column ka bes aan select oo column ka bes ayaan labadaba aan select sa u dhahayaa okay marka waxaan doonayaa inaan bedelo waa maxay direction kooda waxaan imaanayaa waa maxay assign laana addition ba edit baan bilaabayaa sax assign baan imaanayaa kadib waxaan imaanayaa nooc muxuu ah frame buu sax marka waxaan imaanayaa frame waxaan doonayaa inaan bedelo aan local axis ka waxaan doonayaa aan frame kale inaan bedelo marka waxaan dhahayaa مثلا waxaad iga dhigtaa aad qaabadaan saan dhankaan u soo dhigtay saad u aragto aad 90 oo kale iga dhig hadii aan dhaho kadibna apply aan u dhaho arkaysaa automatically inuu bedelay waa maxay frame kayga noocu waxa okay marka okay marka hadaan hore u sii socono hadda waxaan doonayaa waxa weeyaan slabskayga مثلا aan sawirtaan okay marka slabska iyagana waxaan ku sawiray waa maxay saddexdan amar halkan si aaga yaalna soo agartama amarka ugu fudud waa maxay kan rectangle okay kan rectangle marka click sa soo siiso مثلا wuxuu ku leeyahay waa maxay nooc baarta aad inaad waa maxay slabku nooc مثلا hadaan soo slab iga dhig kii hore S16 okay iga dhig hadii aan dhaho مثلا aan zoom saan kale soo dhaho wuxuu ku leeyahay waa maxay pointiga ka bilaabaysid iga ii sheeg marka pointigaas kale tan ka bilaabaya waan dhahayaa okay saan kale tan wali mouse-kayga haye soo garatay ma illa مثلا waxaan dhahayaa saan sorry halkaan kale ka bilaabanaya waan dhahayaa aan illa iyo waa maxay مثلا halkaan kale okay slabkii ugu horeeyay waa ka saaman dhahayaa مثلا soo garatay okay amarkii aan ka baxo kadib aan imaado kadibna aan waa maxay aan rotations aan raxda ka qaybtaas bidix oo dhan waa maxay inaan slabkaygii aan waa maxay aan hadii مثلا extrude ka qaado inaan slabkayga waa maxay aan soo sawirtaan okay inaan slabkayga aan soo kale soo sawirtaan slabkayga ka saas ugu sawiran okay
مثلا دي أن دوني وحويه إن أن كلر كي مثلا لأنه كلران موجي طبعا صح مركي أن وامح إسلاب كي وامح عندورني متكسر كلر بوها أوكي كلر كدي أن ربينا الموجي وكلت كان سكشن كان نماني كدي محنا سكشن إسكا واحد إيسي سا كلر هذا دي أن أقول طلع كلام وان هذا كيسا وامح قيبتان إنه كلر كي سا كوسي إسلاب كان سيدو كلت هذا كيسا قيبتان إنه سنكوسين مركي دي أن دوني لبا ويندو وكلت يفرين ويندو سكان سو حكرت لأن لبا ويندو يفر ويندو 3D يفرين ويندو وامحي بلانك يفرين لبضا إن وامح كلر إسكا يكون متشدان دوني حدا هي apply all windows قيبتان هوسي apply markaan waxaad arkaysaa dhankaana waa maxay inuu colorkii loogu talagalay aan marka hore aan siistay inaan waa maxay usaa igu soo baxay okay colorkan dabcan meesha ka yimaada isweydiinayso aad markaan definition ka sameeynay soo xagaratay maadii aan sections ka timaado slabs ka timaado ss16 hada modify hada timaado colorka aan doorto waa kaas oo colorkan soo xagaratay marka hadii colorkan oo kala darabay inaan bedelo midlan aan cagaarkan oo kale ka dhigto okay aan dhaho kadibna aan kana aan okay dhaho kadibna aan kana okay dhaho soo xagaratay ma refresh hadii aan saa dhaho waxaad arkaysaa waa maxay inuu isbeddelay colorkiisa soo xagaratay ma refresh hadaan isdo marka hadba waa maxay color kalkaasad ka soo bedelaysaa marka hadii aan doonayo midna qaybtan kale tan slabskayga aan dhameystirto waxaan imaanaya slabkayga dhankan مثلا سلاب كيجي صح قالت ما دنكي كله تنوع محي سانو كله تاين ولا مسترنا يعني لا يحيان اوكي سلاب كيجي قاقاس كله تنص ولا مسترتان مركا دي مثلا امر كان كبخو ان 3D جيجا ايماده ان اسكا هوبيو ان waa maxay shay saxan u sawir hadarka saab dhamaan waa maxay slabskayga inaan saa u sawirtana rabo inaan extrude dhaho mid kasta section kiisa saxda aan arko okay hadarkaas waa maxay mid kasta inaan siiyay aan section kiisi loogu talagalay okay ama colorki loogu talagalay marka aad colorka saa adigu aad waa maxay aad indhahaagu ay waa maxay u qabanayaan ayaad ka dhigan kartaa okay marka qaab noocaas oo kale ta marka hadda waa maxay waxaad arkaysaa waa halkan slabka ugu hooseeya wuxuu ku dhigay waa maxay slabka ku dhigay qaybta ugu hooseysa dabcan khalad bay ahayd ay soo xagaratay marka kan slab ma jiro okay slab kan dheelita ayaan iska dhahyaan doorka ugu hooseeya slab ismala lana doorka khalaas waa columnski qaybta hoose dhulka maraysay sax marka qaab noocaas oo kale ta marka mashruucaaga saas uu kugu dhameystiran yahay هذا ربطنا كلرada بدبدش oo kaleeto dabcan sections ka dhamaan oo kalaradan oo kalara waa maxay hadii midna hada groups aan waxnaa isaga kalara ii dooranaya isaga hadda waa maxay color ii dooranaya saad arkaysaa isaga hadba color ii dooranaya midna hadan waa maxay black and white oo kaleeto had arkaysaa maxay black and white inuu ka dhigay had arkaysaa hada tiraade midna color soo xagaratay ma printer color مثلا قام نوعاس كلتين isaga kugu sameeyay marka hadba waa maxay barnaamijka asaga waa maxay color ama adigu colorska adigu sectionska aad soo dooratay colorska asiisatay ayaad ka dhiganaysaa okay marka hadeen waa maxay intaas aan ku joojino qaybtan 10kan labaad insha Allah 10 ku xiga waxaan galeynaa automatically qaabkan DXF u sameeynayna haduu ilaahay idmo DXF كسان وما حوسو import كراين لهين أنو برنامج كان يتبسي أنو وما import وقسمين لهين كدبنا أنو model كي أنو سمي سناي statistical system كداد حسوسته أنو برنامج كأنو فهنسين لهين أنو ولكن إن شاء الله أنت زنكسو كوبي 10 كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.